يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يوتيوبكii Sheekh Xasan Ibraahim ayaan ku jirnaa weli. qaybtii riyooyinkan kaga sugannahay qaybtii 39aad ama xalaqadii 39aad ayaanana gelaynaa. san hore usoo tilmaanay tirsigii baanu ku wadaynaa, 14 baanu maraynay, riyada 15aad. sheekh maxay tahay riyada lagu riyoodo uguna badan oo la karinayo oo digsiyaal badan oo waaweynka oo zabaha ah lagu karinayo oo dad badan loo qaybinayo? waxaa karinaya 2 gabdhood oo saaxiibo ah oona la qabin. maxay noqon kartaa caadi ahaan gabadha ukunta ma jeclo? sheekhana khayr badan allah ku siiyo adduun iyo aakhiro. gabarta ukunta ma jeclo, taa ma fahmin, dib igu soo celi. qaybta dambe cuntada digsiyaalka waaweyn lagu karinayo geerina way noqon kartaa, aroosna way noqon kartaa insha allahu tacaala. wixii khayr ku jira yaanse ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala. riyada 16aad. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sheekh xasan ibraahim, ilaahay ha kaa raali noqdo adiga iyo waalidiintaadaba. waxaan ku riyooday anoo qolka ku jiro ayaa waxaa ii soo gelaya gabar adeerkay dhalay ama eedaday dhashay dheh oo dhimatay, iyo gabadh kale oo aan aqoon u lahayn. waxay igu leeyihiin geerida ayaa soo dhow. waxay igu leedahay dheh geerideyda ayaa soo dhow ayaa la dhahay, maxaa ka jira? markaas ayaan ku leeyahay maya, waxaasi ma jiraan. waxayna u ekayd qof xanuunsan. marka adiga yaa tahay ayay igu dhahaysaa. waan isku sheegayaa, waxaan leeyahay waxaan ahay ina cabdi. markaas ayay igu leedahay waad qurux badan tahay. markaasna waan shushuminayaa. 2 hooyo ayaa waxay ku riyootay iyadoo ilmo yar qof ixambaari ku dhahayso oo qofkii u xambaari weynayo. 3 waxaan kaloo ku riyooday anigoo 2 gabdho la socda. gabadhii mid ka mid ah ayaa ugu dhahaysa waxaan kugu jeclahay diinta, sidaan u xasuusiso. anigana waxaan leeyahay adduunyada haddii aan ku mashquulno aakhiro ayaan iloobaynaa. marka waan isku ducaynaa. qoraalka haddii aan kugu dheereeyey sheekh iga raali noqo. ilaahay ha ku naxariisto adduuni aakhiro. ilaahay dartii ayaana kuu jeclahay. qaybta 1aad gabadhan kuu soo gashay ee ku tiri geerideeda ayaa soo dhow, adigana aad maya tiri, waxay tilmaamaysaa, may caddaynaysaa xumaan ama dembi ama adi ama ayada. taas way tilmaamaysaa. isla riyadii waxaad ku tilmaantay shuminaya. maxaan is shuminayna camal waay. marka taas aad iyo aad uga magangal riyada ilaahay subxaanahu wa tacaala. ta 2, hooyo ilmo yar ayay xambaari rabtaa. qofay dhahaysaa ii xambaari, mana u xambaarsan maayo. ilmaha yaryarka ah waxaa in badan lagu tilmaamaa dunuub iyo dembiyo, waayo awlaadda waxay ka mid yihiin waxyaabaha dembiga lagu galo haddii aan si kale loo adeegsanin.
marka waxaa suuragal ah inay soo geli rabto amase waxyaabo xumaan oo dembiyaal ah ama xoolo xaraan ha ahaadaane shaydaan ama dad intay u qurxiyaan ayadana ilaahay ka badbaadinayo subxaanahu wa tacaala. midda kale xigtana waxay tilmaamaysaa ayadana qofkan wanaagsan ee wanaagga lagu tilmaamay adduunkana ka zaahiday aakhirana u socdaa camal fiican oo saalix oo wanaagsan qof qaban doona inuu markaa noqdo. rida 17aad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. shiiqa iyo walaalka barnaamijka riyada aad ayaan u salaamay. sheekh habeen ayaan qur-aan akhristay, markaan jiifanay korka ayaa marsaday. habeenkii waxaan ku riyooday xoolo badan oo qolka igala buuxa iyo daaha oo soo go-ay, qofna jikada ku jiray hadda qoslaya. habaryartay oon wacay waa ii maqli weysay. isla markaana waxaan ku riyooday naag canugeeda tuko qaadanaya, dhahaysa xalay xitaa waa iga qaadayay, waa isoo celinayaa. waa runteed ayuu tukihii ku dhahay af sawaaxili. isla markii saqdii dhexe ayay ahaydee hurdadan ka soo booday, waxna meesha ma joogin. salaadan tukaday, bliis ifasir jazaaka allaahu khayra aljaza. rida koobaad qofka intuu qur-aanka akhristo korka uu marsado waxay tilmaamaysaa ama ay tahayba shay mashruuc ahoo qofka loogu talagalay. waa kow, waxaa lagu helaa khayr adduun iyo mid aakhiro. xoolaha tirada badan ee meesha lagu soo dhoobayna waa barakadii iyo khayrkii qur-aankii aada ismarisay. daaha go-ay macnaha ciriiri iyo wanaagga iyo barakada iyo xoolahaad helaysa darteed ayuu ahaa, laakiin daa xaqiiq u go-aya markaa ma aha, laakiin xoolaha badnaanteeda unbay markaa tilmaamaysaa insha allahu tacaala. qeybtan kale ee aada dhahayso waxaan ku riyooday canug ama hooyo canugeeda tuka qaatay, tiri waa ii soo celinayaa. tukahaasiis wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aan markaa wanaagsanayn. haddii xaqiiq ay tahay oo hooyada ay jirto canugaasna ay leedahay, ilaahay ha u badbaadiyo. waa canug fitno iyo dhibaato inuu galo looga cabsanayo insha allahu tacaala. riyada 18aad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. sheekh xasan ibraahim ilaahay raalli ha kaa noqdo, allahuma aamiin. adi iyo familkaagaba. walaashay ayaa saakay waxay ku riyootay wiil walaalkay ah oo sakiin xadiidka ugu jarayo. wiil walaalkay oo waalan sakiin xadiidka ugu jarayo. wiil walaalkay ah oo waalan, marka waxaa la dhahayaa wuu dhintay. kadibna wiilkii kale walaalkay ahaa waa la maxkamadaynayaa, dil toogasha ayaa lagu xukumayaa. marka walaashay waxay leedahay, hooyo mid baa naga dhintaye midkan kale yaanala ka dilin. marka hooyana waxay ku leedahay ha la dilo, wiilkayga ayuu iga dilaye. markaan baangad ayaa qoorta loogu jaray, anigoo ooyaya ayaan ka soo kacay ayay dhahday. mahadsanid sheekh xasan ibraahim, alla weyne ha kuu dembi dhaafo, allahuma aamiin. rooyinka noocan oo kale waxaa la isaga nasbeeyaa adqaaf axlaam, riila dhahaa jirtaa. macnaha taxwiil ama ta'wiil fiican oo ay leedahay ma jirto. shaytaanka marka gobol ka mid a qofka riyadiisa iyo hurdadiisa kaga ciyaara, marka ka cuudubilayso dheh, wax dhib ahna markaa ma laha insha allahu tacaala. riyada 19aad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. sheekh allah ku xafido, gabar baan ahay. waxaan ku riyooday anigoo gurigeena xaaqayo oo nadiifinayo. meesha aan xaaqay ayaan lacag ka helay. riyadayda labaadna waxaan ku riyooday ani iyo walaashay iyo dad kale oo dabaq dheer hoos taagan. nin ayaa meesha soo fadhiistay, wuxuu dhahay fadhiista. waan wada fadhiisanay aniga iyo 2 gabdhood aan walaalanahay. markaas ayuu barkin soo bixiyey
aniga keligay ayuu isiiyey barkinta lagu seexdo walaalahayna ma siinin. riyada saddexaadna waxaan ku riyooday anigoo saaxiibtay u soo iibiyey saacad iyo memory card waan siiyey wayna ku farxday. maxay noqon karaan sheekh? allah ku barakeeyo adduun iyo aakhiraba. guriga aad xaaqday oo lacagta aad ka heshay, sideedaba nadaafadu aad bay u fiican tahay. qofka markuu wax nadaafin ajir buu helaa. marka insha allah shaqada aad qabatay, guriga aad ka qabatay, ajirkeedii inuu ilaahay ku siinayo subxaanahu wa tacaala. ninka haddaad taqaano ama nin aad wada socon jirteen uu yahay, in ninka uu ku guursanayo bacdamaa barkin uu ku siiyey, taana waa suuragal, waa lagu fasiraa. haddaadan garanayninna in ilaahay nin uun khayr qaba inuu ilaahay kuu keeni doono, taana markaa way tilmaamaysaa insha allahu tacaala. gabadhaa saaxiibada walaasha ah oo aad alaabta iyo saacadda usoo gadayna, waa mar allaala marka guurkaagu dhacayo hadiyadda aad siin doonto insha allahu tacaala. guri barakaysan, nin saalix allah kaaga dhigo haddii riyadu ilaahay noo dhabeeyo. riyada 20aad. assalaamu calaykum sheekh xasan ibraahim ciise, waan ku salaamay. salaan kadib sheekh, waxaan ku riyooday sodohday oo dhimatay. 1 bil ka hor ayay dhimatay. waxaan ku riyooday ayadoo nool oo sariirta fadhido oo gacmaha wax ka qaban karin, oo ka gabadheeda yar ag fadhido. kadibna waxay dhabteeda ku haysaa aniga gabadhayda yar, oo waxay nuujinaysaa naas, waxaana oga soo baxayo caano. sodohday waxay ahayd waayeel, aad ayay u jeclayd markay noolayd. shiiqayga maxay noqon kartaa riyada? iisoo fasir adoo raalli ah, iga raalli noqo, waan kugu dheereeyay. sadaqaa loo bixinayaa insha allahu tacaala. wax kale oo dhibaataa markaa ma jirto, laakiin in sadaqa loo bixiyo, haddii loo bixiyeyna ha loogu sii dara insha allah. riyada 21aad. sheekh khayr fara badan allah ku siiye, allahuma aamiin. waxaan rabaa riyadan inaad ii fasirto. soomaaliya ayaan joognaa, familkayga dhammaan madaxweynaha soomaaliya ayaa la afgembinayaa. dadka tuugadii dagaal ayay kicinayaan, markaas ayay dhahayaan 24 sac gudahooda ku baxa. dadkan aragno waan biraynaynaaye, annagana familkeena dhammaan waa la soo qaxayaa, iyo dadkii dariskeena ahaa oo dhan. hooya na soo wada, aabbo aadan ayuu aadaamayaa, xoog uu u qaylinayaa. aniga kelimad laa ilaaha ila allah aan afka ku haystaa. abti sidoo kale ayuu yahay, hooyo sidoo kaleeto. markaas gurigan kalena markaas markaan gurigaa galno, ari ayaa naloo qalayaa. guri dad deganeen waaye, aan wada imaanaynaa. qol weyn ayaa ku yaalaa. guriga hooyo waxayna dhahaysaa, gurigan gala, tuugada nima arkaysee. hilibkii oo ceerin ah waan wadanaa. markaas gurigan galnay, hoos ayaan ka wada xiranay. albaabada qolka aan galnay guud ayuu leeyahay. albaabadii ayaan galnay god ayuu leeyahay oo kulayl badan. godka bahalada yaryarka ah oo biibiibo ayaa ku jira, laakiin dadka qaar oo nala socday way galeen. cabsi darteed ayay u galeen. bahalada dadka ayay cunaan. bahaladaasi iftiin ayay leeyihiin, sida caracarada ayay isku qabqabsanayaan oo u jiidjiitamayaan. godkii dadka ayaa galay. ani godka inaan galo ayaan rabay, abti iyo hooyo ah ii diideen. kadibna beerkii ari ayaan noola dubay. qolka dhexdiisa waan ku cunnay.
hurdadii waan ka soo kacay iga raalow shiikh haddaan kugu dheereeyey riyadaasi maxay noqon kartaa wixii shar ahna ilaahay hanaga haayo caadi ahaanba qax iyo orod iyo haddaad ku riyooto waa khilaafkaasoo usrada dhexdeeda soo dhexgelaya usrada dhexdeeda ka imaanaya waad saad sheegtay ducadaada allah noo aqbalo wixii shara allah naga xijaabo saa darteed laakiin riyada qaxitaankii meela aad soo marteen iyo bahalada kulli waxay tilmaamayaan qoyska dhexdiisa khilaafiyo ama dhibaatooyin ka dhex dhacaya riyada 22aad assalaamu calaykum sheekh xasan waan ku salaamay salaan kadib ninkayga wuxuu ku riyooday asagoo wuxuu matagayay wax madow haddana hosbitaalkuu joogaa jazaaka allahu khayra aljaza matag wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka markuu xanuunsan yahay lagu arko lagana dareemo matagga sidiisaba ma wanaagsanoo riyo fiican markaa ma aha haddana qofka hadduu wax madow sii matago kasii dhib badan tahay waxaa dhici karta qof mataqaanaa wax aan wanaagsaneyn cunay xoolo mataqaanaa aan jaa fiican ku imaanin iyo wixii markaa lamid ah xaqiiqan hadduu xanuunsan yahay ilaahay ha caafiyo laakiin matag madow waa riyo aan fiicneen insha allah riyada 23aad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheekh xasan ibraahim allah ku xifdiyo adduuni aakhiraba sheekh waxaan ku riyooday aniga iyo 2 gabdhood oo ila dhashay oo isla socono kadibna socod dheer kadib jidka ayaan fadhiyey mas aad u dheer una buuran ayaa fadhiyey waxaan iri alla waa mas aniga uu ii jeedaa ayaan usii socday kadibna maskii wuu igu soo orday dheh kadibna carabka fiidiisa hore ayuu iga kala gooyey gabadhii mid ka mid ahna madaxa ayuu ka qaniinay midna kalena waxba ma uusan gaarsiinin waa dilnay maskii kadibna waa uu dhintay ilaa aan u sheegno familka dhan kadibna laga soo saaray dhagxaan dhexdooda asaga oo kala go-ay sheekh riyadaasi maxay noqon kartaa adigoo mahadsan jazaaka allahu khayr ayadana waxay noqon kartaa cadow aada leedihiin kadibna damcahaya inuu dhibaato idin gaarsiiyo kadibna ilaahay guul idinka siiyey subxaanahu watacaala ama idinka siin doono xaqiiq ilaahay agtiisa riyada 24aad assalaamu calaykum sheekh xasan allah ku barakeeyo sheekh waxaan rabay inaan ku weydiiyo riyo sheekh waxaan ahay naag la qabo oo ninkeeda aan isla joogin xalay ayaa waxaan ku riyooday anigoo meel aan aqoonin jooga waxaan arkay 2 nin mid ma aqaani laakiin mid waan aqaanaa caadi ahaan waa fuundi oo guryaha hagaajiya waxay u ekaayeen dad raba inay wax halleeyaan kadibna anoo gurigayga jooga oo jiifo ayaa waxaan arkay iridda qolka oo ii furan waan soo kacay iriddii ayaan rabay inaan xiro 2 nin oo fadhiga ii jiifaan ayaan arkay midkii aan aqaanay haddana wuxuu ila noqday wiil kale oo aan garanayo dhankayga ayuu u soo dhaqaaqay wuxuu u ekaa nin raba inuu ikufsado iridda ayuu igula dagaalamay waan ka xoog badiyey waana ka xirtay haddana wuxuu isku bedelay fuundigii iriddii ayuu soo jabiyey inaan qayliyo ayaan rabay mindi ayuu meesha taala waan ka baqay mindi ayaa meesha taalay waan ka baqay haddaad qaylisid mindida amuu kugu dhuftaa ayaan is ahay anigoo zaa'id ayaan isdhahay dheh fuundigii isku bedelay iriddii ayuu iisoo jebiyey inaan qayliyo ayaan rabay midi ayaa meesha taalay waan ka baqay haddaad qaylisid mindida amuu kugu dhuftaa ayaan isdhahay anoo zaa'id u murugaysan ninkayga nin aan ahayn ma rabi ayaan leeyahay ilaahayow maxaan sameeyaa gabar aan qaraabo nahay ayaan codkeedii maqlay oo magaceeda igu
magacayga igu wacayso oo i dhahaysaa dhib ma ku jirtaa, waan dareemoyaa ruuxaanteedii ayaa ii sheegayso, ayay i dhahaysaa. Anigana waxaan iska dhigayaa qof waxba maqlaynin. Ninkii codkii wuu maqlaa. Waxaan isdhahayaa hadduu ina codkaysa maqashay ku ogaado wuu ku dilayaa, mindi ayuu kugu dhufanayaa, ayaan isdhahayaa. Waxba ma maqlooyi ayaan dhahaa. Kadibna ninkii waan la dagaalamayaa, waan ka xoog badinayaa, bannaankii ayaan u saarayaa. Gabadhii oo albaabkii bannaanka joogta ayaa gudaha ayaan soo gelinayaa. Ruuxaanteedii ayaan ku soo diray, ayay i dhahaysaa. Sidaas ayaad oga xoog badisay. Haddana iridda bannaankii ayuu soo jebinayaa. Waxaan dhahayaa ruuxaantaadii ku dir. Intaas ayaan ku soo kacay. Sheekh markaan seexanayay ayaa waxaan ku fikirayay khilaaf ani iyo ninkaygana dhex marayay. Wax mala fahansiin karo. Hadal waliba xumaan ayuu u fahmaa. Hadal walba xumaan buu u fahmaa. Wax yar ayaan ciilooday. Khayr fara badan Allah ku siiyo. Iga raali noqo qoraalkii uu dheer yahay. Ina cafi sheekh. Wabilaahi tawfiiq. Allah ku xafido. Raggii dumarka hala maqana Allah isu keeno insha Allahu tacaala. Waa dhibaato aad iyo aad u weyn. Dadkii isla joogo isla fadhiyo is arkaya marka gool kamid khilaafka dhacaaye ka warama laba qofood laba meel kala joogtaa, dhibkeeda markaa leedahay. Markaasaad ku fufsatay bay noqonaysaa. Waa arrintaa jirtay, waa wax qalbiga ku jiray, waa khilaafaadka. Marka Ilaahay ha ku xafido. Markaad seexanaysa insha Allah adkaartaada iska akhriso. Ciilkan iska daaya. Laba kala maqan baa tihiin. Caloosha ha la isku furo. Khayrkii wanaagga ha lagu dadaalo. Ayadoo la isku duceynayaa ha la kala seexdo. Insha Allah dhibaatooyinkan iyo waxaan ma arkaysid idin Ilaaheeye. Riyada 25aad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sheekhuna aad baan kuu salaamayaa. Wanaaga aad ummadda u haysana Ilaahay ha ka ajir siiyo. Allahumma aamiin. Sheekhana waxaan ku riyooday salaada subax markaan tukaday oo hurdada ku yara laabtay aniga iyo wiil dariskeyga ah, asxaabna nahay, iyo wiil kale oo aan aqoon oo meel wada fadhina. Yarkii asxaabta ahayn baaquli hilib oodkaca ku jiro ayaan ku dardaaranaynaa qubus mise canjeero, laakiin qubus ayaan u badinayaa. Yarka kale oo aanan aqoonna keligiis ayuu cunayay, wuuna na ag fadhiyey. Sheekhana maxay noqon kartaa? Abaalkaaga jannada Ilaahay Allah kaaga dhigo. Allahumma aamiin. Allahumma aamiin. Haddii aad tahay qof gabar haddii aad tahay lana qabin, waxay noqonaysaa inuu ku guursan rababa insha Allahu tacaala. Kan kalena ajnabi kaa noqonaya bannaanka. Qofka riyada soo qoray hadduu qof raga yahayna risqi nadiif oo ziyaado ah inuu Ilaahay siin doono subxaanahu wa tacaala. Qof la qaba haddii ay tahay qofka riyadana risqi siyaado ah gurigooda inuu markaa soo geli doono. Riyada 26aad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sheekhow, waxaan rabaa riyadan inaad ii fasirto. Riyadani waxay tahay waxaan arkay anigoo duulaya oo joog hoose ku duulaya, weliba aad u faraxsan, dadkuna ila yaaban yihiin. Markaan duulayo intaan beerbeer u seexdo ayaan gacmahayga iska hor marinayaa, markaasaan duulayaa. Macnaha waa sidii qof dabaalanayo kale ka wadaa. Midda kale riyadan 4 jeer baan arkay qofka duulaya. 3 si baa lagu fasiraa. Qofka hadduu qof wanaagsan yahayna inuu karaamo Ilaahay siiyey ay tahay, macnaha dhib kasta, mashaakil kasta inuu Ilaahay ka badbaadinayo, korna uu ka aadayo, waa lagu fasiraa. Waxaa lagu fasiraa qofku hadduu qof xun yahayna wuu duuli karaayo karaamaad baa ka muuqata. Qof cibaado yar, xumaan badan, wax noocaas oo kale waa lagu fasiraa duulitaanka. Waa labo. Ta saddexaad waxaa lagu fasiraa duulitaanka haddii qofku qof oo dumara uu yahayna
in guri wanaagsan zooj wanaagsan macnaha qof heer sare noqonayo kor noqonaya inuu markaa noqonayo taana markaa waa lagu fasiraa insha allahu tacaala wax dhib ah ma laha duulitaanka ilaa inuu qofku yahay ilaa qofka asaa is oge qof dembi badan markaa duulitaanka waa sabansabit macnaha waxaa loo sii dheeraynayaa cadaabka waxaa loo sii dheeraynayaa imtixaanaadka dhibaatooyinka saasaa markaa loola jeedaa riyada 7 assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sheekh xasan ibraahim ciise waan ku salaamay waan kaa qaaday sheekh allah ku xafiday adduuni aakhiraba salaan kadib waxaa ii fasirtaa riyadan waxaan ku riyooday anigoo addimayo marar badan maxay noqonaysaa fasiraadeeda jazaaka allahu khayr laba fasir bay qaadataa addimitaanka addin waxay qaadataa qofka marka la fiiriyo qof wanaagsan ahlu diin ah ahlu taaco ah ahlu cibaado ah ahlu khayr ah hadduu qofku yahay kuna riyoodo asagoo addimaya waxay noqonaysaa xajkuu aadayaa waadin fi nnaasi bilxaji buu dhaha subxaana watacaala hadduu yahay qof xun ilan qof iska fisqi badan oo iska xumaan badan dhici kartay inuu ku imtiqaanaa inuu ku riyoodo inuu aadaamo qof aan wanaagsan hadduu yahay kuna riyoodo asagoo aadaamayana tug buu noqon waxna wuu xadayaa saasaa marka lagu kala fasiraa labada riyood ninkan oo xun ee ku riyooday inuu aadaamayana waxaa loo cuskadaa baa la yidhi huma adana mu'adinun ayatuha alciir inakum la saariquun tuugaa tihiin marka labadaas bay noqotaa marka waxay ku xihan tahay qaabka cibaadadaada insha allahu tacaala riyada 28 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانكو سلام الشيخ حسن إبراهيم عيسى سلام كدب شيخ وحان كوريوضي أني إيو سوچ كيغا أو وضا جيفنو سريرتا مركز أيو قعنتيسا إيغا ساري ملكس مركز ساسا كوغران أيو قعنتيسا إيغا ساري علوشا كدبنا وحان دهي kaadi ayaa i haysa wuxuu igu yiri baxoo soo kaadi markaasi waan kacay waxaan ku kaadiyey tuujin oo sariirtayda agtiisa yiilay markaas kaadidii ayaa dhulka iga gaartay waan kacay waxaan aaday suuliga waa intaas sheekh maxay noqon kartaa riyadaasi waad mahadsan tahay iga raali noqo haddaan kugu badiyey wax dhib ah malaha mana igu badinin qofka saasoo kale hadduu ku riyoodo asagoo kaadinaya ama sariirta ku kaadiya ama tuujin oo saas uu ku riyoodo waxaa la yidhaahdaa sir u qarsoon ayaa banaanka soo bixi doonta idan hooyooyin waxaa jira ayuuta ku jiro ragga aan ogeyn amaa la ogaan doonaahe iyo wixii markaa lamid ah marka saadata sirar u qarsoon yaa gabadha banaanka usoo bixi doonta 29 riyadeeda waan ku salaamay sheekh xasan ibraahim ciise salaan kadib sheekh waxaan ku riyooday ani iyo sawjkayga aan isla socono kadibna waxaan cirka ka soo degay libaax wuxuuna igu yiri adigoo waxaan ka leysaa wuxuuna igu yiri adigu waad ka leysaa waxaad gelaysaa dheh naarta asaguna wuxuu gelayaa jannada sheekh waan walwalsanahay ii soo duceey ilaah khayr ha ku siiyo adoon iyo adduuni aakhiraba sheekh waxaan ahay gabar raaliye ah awan maqlaa waan ateecaa salaada waan tukadaa sunooyinka waan tukadaa salaatuleylka waan tukadaa waan soomaa sunooyinka xataa waan soomaa sheekh maxay noqon kartaa riyada waad mahadsan tahay nin hadduu u yimaado naag baan dhihi lahaa hadduu u yimaado libaax ama ceersado ama rati u yimaado waxaa dhici karta nin inay xumaysay hadal xunna ay kula hadashay nin baa soo doontay intuu ninka kala guursanin saani ulama hadlin ama wax khiyaanay ku samaysay ama wax intay ka qaadatay bay imtaqaana arintii uga baxday wixii la mid ah adi wax isdabamaris ah inay qof ku samaysay baa suuragal ah hadday jirto xaaladda wuxuu qofku samaynayaa inuu raadiyo kana raali dalbo in cafis uu ka dalbado
taas waa sida ugu wanaagsan saasaana inta badan lagu fasiraa haddaysan jirin inta cibaade aad tirisay waxaa dhici karta qalad aan ku jirno oon anagu is ogeyn inaad ku qaylisa suuragal ah hadal uu dhibsano iska aamusan yaba suuragal ah waa qaybta hore haddaysan jirin marka saasaa lagu kala fasiraa adkaarta iska badso ilaahi subxaana watacaala waxay xumaani dhib ah allah kaa xijaabo dhammaanteenna allah naga wada xijaabo in shaa allahu tacaala rida soddonaad assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sheekh allah ku xafido waxaan alla kaaga baryayaa cimri dheer iyo cibaado suuban shiiqii waxaad ii fasirtaa riyadan waxayna tahay sida tan meesha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaana watacaala aclam